saasaa lagu shubaa karow miyaas leedahay hal maroo ku booda waa soo baxaa haddaa soo baxo meeshaa gal laheed raadso cabdirashiidee muxuu yahay si wax la dhacmaa lagu gataa mise wax celisi waxsaas maxaa lagu sameeyaa baahi jirta awgeed mobilka waa ka qaatanoo isdaha Ibrahim lacagtiisa oo soo buuxi doontaa waana sii doontaa ninkii waa waag intaan naxaya muraayada ka dhac albaabka sida ugu booday banaanka markaas uu istaagsaday wax meesha jooga male waxaa si wada jir ah laydinkugu eedeynayaa dembiga ah dhac kadib markii aad moobeello ka daftay dhibanayaasha kale ah Faa'iiso Cabdiraxmaan Cali oo aad ka daftay moobeel nuuciisu yahay A16 Naciimo Yaasiin Aadan oo aad ka daftay moobeel nuuciisu yahay iPhone Ibrahim Xasan Cabdullaahi oo aad ka daftay moobeel nuuciisu yahay iPhone Maxamed Xuseen Xaashi oo aad ka daftay moobeel Samsung A56 sidoo kale moobeeladan waxaa qaar ka mid ah ka gaday dhibanayaasha kale ah Asad Mardaad iyo Saalax Abuukar Maxamed kuwaas oo dukaamadooda aad u geysay si ay kaaga iibsadaan adiga oo ku dhahay waa hantideyda halkaas oo dhacay degmada Boondheere degmooyinka Boondheere Shangaani Xamarweyne Yaaqshiid waxaanu dhacay taariikhi kala duwan yaadam saadam wax badan aad daftar uga mashan dadka dhacay hal moobilka ka daftaa afar qofood ayaa wax ka qaata moobiladooda laba qofoodna moobiladii aad dhacdaa ka sii gaday adigoo saga dhigina adiga leedahay eedaas ma gashay mise ma gelin dooda ka qabtaa mudane gudoomiye dooda ka qabaa aye dambiga lagu heystaa waxay tahay mudane gudoomiye horta wax dhac la dhahay ma jiro waxaan dhacay ma jiro mana dhicin wax tan kale waxa waaye gabdhahan labada gabdhood oo Faa'iiso iyo Naciimo soonkii hore ilaa bilaha dambe dhan waa isla wada deganeen dad guri isla wada deganaa ahayn isaqaano xaaskayga dhibaateen oo gacan qaadeen gabdhooda badan waa guri degan aniga xaaskayga bis faqad ka ahayn kulligooda marka xaaskayga gacan saareen oo ayaga ku ficleen oo waqdadeeyaan dhibaateeyaan mobilkeedii ka jibiyeen marka de saas sameeyay taliye iyadoo taas taal awgeed aniga ugu sameeyay labada mobilood in aniga ka qaado koow waqdadaas darteed waa laga tagay Ibrahim ku soo hiro iPhone-ka Ibrahim iPhone 15 Pro Max waa leeyahay been maaha maalinka ka qaada maalinta ka horreysay maalinta si horreysay mudane gudoomiye waxa uu keenay mobil 13 Pro Max oo cusub waxa ku dhahay Ibrahim mobilkan hay isi 200 oo rahana mootoolaha ninka saaran waa dalaal guri kiraa laga rabay askayga dhiibo 200 hadaan ka qaato mudane gudoomiye maalinta kale xigta oo soo laabtaan Ibrahim lacagtaada ku raadayay Snapchat-ka walba ka raadayay dadaan kala hadlahay mobilka isii karta intaas isnaqaana ilaa 2020 ka isnaqaan ninkaas ilaa hadda isnaqaana mayo idaamu ku sii kari toos lacagtaada ku wada celinaayo mobilka ma ka samre ha ii celinay marka waa marka 170 oo kugu daraa oo dhaay ku qiimeysan markaas 370 mobilka hadduu intaas ku qiimeeyay ninka mobilka wax kale ku daraa oo dhahay shalan 200 ay qaatay 200 ay celi karin mobilkiina ka qaadi karin waxa qasab igu noqotay in lacagtan ka qaato oo 170 ka 370 aan ka qaado mobilkaas cusub yahay wuxuu ugu qiimeysnaa 540 iPhone 13 Pro Max oo ah ha ahaato marka maalinta kale aasi u imaado waxaan ku dhahay mobilna ka iibsadaa raba isii marka mobil kale ii soo bixi markaas ii soo bixi mobil 15 Pro Max 15 ka ii soo bixi ani mobilkii waxa ku jirta 450 waxa ku dhahay meeqa intaan mobilkan iga siin oo dhahay 830 ma soo dhawiyaan dhaaniyo kala baraa haystaan dhahay mayo dhahay waxaan dhahay xataa 500 ka dhig oo ku bixiyo konton kaan 500 ka dhig mobil la'aan ah mobilkan isii soo diiday awgeed marka Ibrahim kan waa isnaqaan si kalena xal kalena ee mufna mobilkan waa u baahnay baahi jirta awgeed mobilka waa ka qaatanoo isdaha Ibrahim lacagtiisa oo soo buuxi doontaa waana sii doontaa hadaa bax magaaladan waa ka wareysaa mudane gudoomiye inta daa u dhaqaaqo $10 ka bixis mootra inta daa u dhaqaaqo lacag kale ka bixis mootra lacagtii waa isii dhintay that's why oo Ibrahim ilaa haddan inta Salmaan ay gaarto lacagtiisa u waayay haddana inaa sii diyaar ah marka mudane gudoomiye labada dhibana saasi iga heereen kan saddexaad ku soo hiro oo yaqshid ee konton 6 ka maqanta Samsung-ka mudane gudoomiye kaas dan iyo duruuf awgeeda u bareera dan iyo duruuf jirta awgeeda hadaa taas u bareera ka soo qaatana mobilkaas waxa ogaay mudane gudoomiye wadanka inuu sharci ka jiro kaamirooyinkan ee shaqeeyahay maalmaha kamid ah in is qabsado doono ama meel kale ay u qabsado ama inta ay u qabsado lacagtiisa inaa siin diyaar ah ahay gabdhahanna hadda ii kana maanta ay u qabsadaan wax walbana diyaar ah u lahayo lacagtooda inaan bixiyo mudane gudoomiye inta ay sheegteen daraad saldhig horta idoo in la isku wada xaliyo la rabo waxay dhaheen min qofkiiba lacag oo sii dul saartay ala qof lacagtiisa lacag oo sii dul saartay marka reerkii familkan waa si yaabeen dib ay u gurteen
saana dhashay marka in maxkamadan la soo orsiiyo maanta agtaada ay imaado aawda mobile labada moobeeladii waa yaalaan intii yaalaan meeqa maalin xiranta 13 maalin xirnaa maxaa u keenay intaas maalin intaas maalin waxa u keenay moobeelada qaar soo celi inta kale moodana family-ki iyo reerihii waa isku tabarcad oo iska reer tabar waan arooriyeen lacagtii in la dhiibaal rabay markay imaadeen lacag kala sameeyaa macnaha ya niman kale wax ka gaartaa jira ma labada nin waxa ka gatay waxa way Asad Mardaadi ee 56 ka gatay saalaxna gabdhihii moobeelkooda oo arbacada qaada u geey Soomaaliyaasna waa la soo celiyay waxa ka qaaday Asad Mardaadi moobeelku waa ka gatay waxa ka qaatay 250 daruufo jirta oo kari wax baas leeyahay garow ninkaana ku soo heer saalax asina moobeelkan waxa ka gaday gabartan moobeelkeeda 15ka A15ka iPhone 15ka adig mushaari ma hido ciidanka mushaar ka qaatiyo madana gadoomiye mushaar waa ka qaataa mushaarkana rikaabaan iga jaratay marna maxaa la dhahaa muddo ka hor dhibica isaarnada lacag ii soo dhicay maxaa ku qaadata oo raab kaaga jartay muddo ka hor lacag ma qaadin hadda ii furuntan rikaab lacag $90 ii soo dhacdo ka badan iyo soo dhacdo waxa ka qaata alaab oo kukarka iyo maxaa la dhahaa G4 single oo dumeeshidii imaada u dhigay dumeeshidii safar ka timaado inta wax ka baranayso maxaa baratay jaamacadda ku baxday madana gadoomiye waxaa bartay dugsi sare hoose dhexe sare iskoolka ay dhamaad dugsi sare ka baxday jaamacad wili maana gelin hogaanka caafimaadka ka tirsantaa hogaanka caafimaadka sa iskoolkayga u dhamaystirto aa liigu geliyay aniga waxaa askari noqday 2019 anoo 86 sano jir ee taliyay marka hogaanka caafimaadka waxaa liigu geeyay form 4kayga saa ku dhamaystaa meesha liigu yahay ergadeeda waxaa ka shaqeeyay Maxamed Daahir muddo cida maamada hoobiyo guriga soo dhaceen safar loo qaadaro marka fasax hal sano liisi safarkaas ay aado Turkiga ay aado hadana alboor kale liigu soo reebiyo ku baaqada ergadii iyo gurnadii sidii lacagtii ay goodo lacagta dawladda caadi booliiska ergada VAB Maxamed Daahir al shaqeynaa staafta madaxda la shaqeynay lacag kale oo gunaa qaadanay marka maamadii cida hoobiyaha guriga ku soo dhacay waxa la marka cida banaanka loo qaadaa waa liigu darrabay anoo liigu darrabay hal sano fasax oo dawladda ii jartay sidii askaga baaqada mudane gudoomiye alboorkan waa liigu soo celiyay kan muxuu ahaa ninkan saaxiibkayga maxaa lagu haystaa asigan waxa lagu haystaa kiiska maalinkan oo mootada inuu igu wada asi yakhshid marka aadeyni dalwarkii igu ahay yakhshid marka aadnana marka moobeelka aan soo qaatay ninkaasna asaa soo waday waa iqaado ku dhahay see wax u dhaceen waxa u dhaceen maalin maalmaha kamid ah maaragtay mootola ayaa ku maalin maalmaha kamid ah aanu shaqeynaa laamiga saaran waxaas aragnay ninkan oo magaalada soo joog soo qaaday markaas waxay dhahay xaafadda rabaa xaafadda ay geemiga shaqeysanay anna marka laamiga maxaa saarnaa inaan shaqeysto Soomaa marka waa soo qaaday xaafadiisa geey lacagteeda ka qaatay waa ka tagay marka lambar oo iga qortay maalmaha kamid kale oo soo wacay waxay dhahay shaqeynaysa hada shaqeynaysa oo dhahay xaafadiga xaafadiya ugu maaday marka xaafadda marka ugu maaday markaas wuxuu yidhi meel inta wax ka soo qaadanay waa soo celinay ay soo bax marka meeshii ay tagnay ana marka banaanka iska taagnay markaas wuxuu u dhahay ninkan oo soo socda la arkay oo dukaankii ka soo dhamaaday marka sidii aan ku soo qaaday ana xaafadiisa geeyay maalinka inuu wax soo la soo cararay markiinu maalintii ma waxna imi sheegin waxna soo cararin moogeen an marka banaankaas ku sugay moto Falcon ma leedahay Falcon ana miliyo ka shaqeynay awda hadda way taala intee taala waxay taala saldhiga taala ya iskale waxay iskale aniga waxa la ay bis waa ka shaqeynaa nin kale iskale oo saaxiibana Kirista ma yani waa Kirista oo shaqeynay marka wiil kale iskale mootada oo saaxiibana markii adiga waa la ogeed inuu wax qaato ninkan ma talin lama ogeen gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh labada eedeysane ee kala ah Saadaan Cabdullaahi Cali iyo Maxamed Cali Maxamed waa laba eedeysane oo ku bihoobay dhaca iyo dafidda moobeelada dhacaan naqiinay wuxuu ahaa in qori qofka taqaato uu jidka istaago uu qofka si xoog wax uga qaato laakiin Saadaan oo booliiska ka tirsan hogaanka caafimaadka ka tirsan wuxuu soo kordhiyay sheeko iyo arin aan booliisku iyo sargaal booliis ama askari booliis ku cusub oo ah in inta moobeel la dafo janta fagax la dhaho waana arin cusub oo magaalada ku cusub waay gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh sidaas uu ku sameeyay wuxuu ku sameeyay Faaiisa Cabdiraxmaan Cali oo qolka
guriga isla degnaayeen qolka sariirteeda moobeelka asoo u saaran ayuu ka dafay sidoo kale naciime ayuu ku sameeyey sidoo kale ibraahim xasan cabdulaahi ayuu wuxuu iska dhigay nin wax iibsanayo oo iibsi u soo baxay moobeelka meeqa waaye noocan waaye intaan waaye heshiiska intoo socdo wuxuu fiirinayaa ilbiriqsiga qofku isbedelo ama meel kale uu ku mashquulo kadibna wuxuu sameynayaa moobeelka la ordaa markoo la ordo banaanka waxaa u taagan mootofeekon waxaa darawal ka ah eedaysanaha labaad way la baxsaneen way la ordayeen saas waxaa lagu sameeyey ibraahim sidoo kale maxamed xuseen xaashi oo yaaqshi degan suuq bacaad xarunna ku leh meeshaas elektroniga ayuu sidoo kale inta u tegiyey wareystay isagoo u gashtay dharka jiimka iskana dhigaya inuu jiimka imaado sidoo kalena wata buraashada biyaha lagu cabo markaas wuxuu iska dhigayaa diyaasbaro ayuu iska dhigayaa qaabka diyaasbaro u libsan yahay jaakad weyn uu wataa markaa adig kor ka aragto waxaad u moodaa nin waddamadaas laga keenayo dhaqan cilmi loo keeno macnaha laakiin qaabkaasu meeqa waaye intuu dhahaya ninkii oo mashquula kaamirada kale bandhigi doonaahe waa la ordaa banaanka markuu u baxo ayuu janta fagax leeyahay markuu ordo wuxuu raacaa mootada eedaysanaha labaad uu watay uu darawal ka ahaa maxamed cali maxamed xafiiska marka faldambiyeedkaa soo gaaray maadaama degmooyin kala duwan uu ahaa oo sida yaaqshiid oo kale xamarweyne shangaani boondheere iyo shibis ee ka wada kooban yihiin eedaysanayaasha dhibanayaasha wuxuu ku mideeyey saldhigga shangaani waxaana baare ahaan ka ahaa baaraha saldhigga shangaani asluub mudane guddoomiyey garsoore maxkamadda sharafta leh xafiiska xilaalinta wuxuu mideeyey galalkii dhammaa wuxuu sidoo kale la kulmay dhibanayaashaas sidoo kale wuxuu baaris ku galay yaa leh mootada waxaan soo helnay in eedaysanaha labaad mootadii laga qaaday oo loo dhiibo darawal kale darawalkii kale ee loo dhiibay asiga oo wato ayaa mootadii la qabtay markii la qabtay milkiilaha waxaa lagu dhahay mootadan dhaca lagu geystay darawalka horreeykan saasaa darawalka lagu soo qabtay darawalka hadda fadhiyo waxaa jooga maxkamadda milkiilihii sidoo kale mudane guddoomiyey waxaan dabagalnay oo dabagal aan ku sameynay mudane guddoomiyey dukaamada la geeyey moobeelladan xafiiska xilaalinta wuxuu dib ugu soo celishay moobeelladii maxkamadda hor yaallo qaar ka mid ah moobeellada oo xafiisku gacanta cadaaladda uu ku soo celishay isagoo adeegsanaya laamaha amniga saddexdaas moobeel eedaysana saadaan ayaa dafay laba ka mid ah gabdha ayaa laga dafay hal ka mid ahna waxaa laga dafay dukaan ku yaallo yaaqshiid laakiin dukaanka yaaqshiid ku yaal marka laga dafay kadib waa la gatay kuwan laakiin waxaa loogu tegay dukaanlihii uu haayo saasaa loogu soo qaaday dukaanlihii asina waa lasku soo qabtay baaris kadib dukaanlihii waxaa la ogaayay inuu dhibana yahay dukaanlihii waa fadhiyaa marka maxkamadda waa joogaa sidoo kale waxaa jooga maxkamadda dukaanlihii labaad ee asna laga gaday moobeelkan ee kontii lixda oo yaaqshiid laga soo dafay laakiin moobeelka waa la waayey wuxuu keenay laakiin moobeelka moobeel semle ah saa laaligeeda asna waxaa loo arkay dhibane maxkamadda hor fadhiya dhibanayaasha guud ahaan waa 7 qaara waxay ku xusan yihiin qaybta saro eedda qaarna waxay ku xusan yihiin qaybta dhibanayaasha maxkamadda waxaa ka codsanayna in la hormariyo qiraalka sida hadda qiraalka yihiin waaye in lagu waco Faa'isa Cabdiraxmaan Cali maxaa ka maqan seen wax laga qaatay seen wax u dhaceen أنا حاجة ما كان تليفوني اللي حي تونا ka maqan ayi seen wax laga qaatay noo sharax ninkan gurigoona uu maaday ko gurigoona la degnaan jiray ramadaanka hore gurigoona uu guuriyay markoona uu guuray ani asaas khilaafnay lacag lagu lahaa isku khilaafnay ilaa markiis waa xabareegsada xaafada aabay u wareegsaday muddo ku maqnaay umulak soo baxay abaaya uu maaday abaaya marka uu maado habeenkii laamiga uu arkay oo soo daba kacay subaxii gurigoona uu maaday تلفوني لحي تونا لح مالنا هيستو سريرتي كور سارنا وقاتي انتو اباوش شيكيو دا لعقتادنا اوكسيها maxaa lagu lahaa lacagta noocay lagu lahaa markaas $70 ku lahaa oo guri ijaarkiisa marka 17 bir markay ka soo wareegto noo imaaday hooyaday soo socto dhaawaa dhiiba ilaa amarkiis qolka galay abaayo qolka ku jirto ee foon wadatay oo ceedo u qaatay xoog ma ugu qaatay xoog ku qaatay foonka kadibna way hanjabaadaani soo dhahay markasta waxay dhahay hadda maalin hore marka maxkamadda imaanayeen waxay dhahay
واسو بحا هدا soo baxo meesha gal leed raadso cid iibka badbaadi leed raadso saa ku dhahay marka hore oo idila degnay asiga ba idila degnay asimina la degnay guriga gabar oo asi qaba igi jaaratay iska bul ahaan igi jaaratay marka laba habeen degneedo habeenkii asi imaaday hadoo imaaday degmada u celiyay degmada waxay raado way qabaan ninkan bishaani dhamaata ka guura Allah saasay guriga ku degeen gabar marka hore bidin sheegay iska marmiya ma noo sheegin iska bul ahay dhahdee degmada marka ka soo qoraa isla tageen iska bul ahaan igu soo degtay ilmo wad marka maya ilmo ma wadan habeenkiina asaay qabay dhahdee meesha u laabana marka meesha tagna degmada waxay ka soo qoratay in la qabo asima tagina ayada la tagtay degmada gabarta islaanteedii dhibeynay mobile ka qaateen uu leeyahay asiga telefoonkaas marka umusha ahaay ahayd 9 bilood ag soo rigtay konton iyo 6 oo ahaa gabar il dhalato ka xoogay waa baxay gurigiisa raadiyay waa tagay asaa uu tagay eeda xitiri telefoon oo waxay haysatay telefoon marka saldhig shibis waa taqaana ala isla tagay xataa telefoonka haysatay dhahdana waa kaas ayaa qaadi karo ani telefoonka ka dafay ilaa ana waa ciil qabay xoolaheygii ninkeeda ku maqan yahay saldhiga la isku xiri telefoonka saldhiga oo shibis ay qaadeen keygina ma helin koodina way heleen meeshaas ugu haray aanadii oo gabadhaas telefoonka ka qaaday ko asiga qaatay muujeedo oo isoo daba kacay tiyo hadana 16 iga qaatay woona soo laabtay telefoon oo nooga qaatay kii kood mid ay ka maqnaamay marka tugeyseen marka ka haraba konton iyo 6 oo ahaay oo biigaleen waa ka harakaas telefoonkiina saldhiga ay qaadeen waa la siiyay meesha kaas ugu haray kadib hadda marka 9 bil kadib kasoo wareegatay oo maalin habeen arkaa ku dhahay 16 subaxda iga qaadaayo waa too maalin kasoo wareegto oo noo imaado hooyaday soo socto dhaa telefoonkaaga oo siyaha baa ina ka qaldana waa oo raal noqo hayo way hada xooleyga siyaas qeer waaye inta fadhiiso hooyada inta ku sug irida fadhiya baa qolska ku jirto oo laaxde ana gadaala aad gudaha iska galay eejo uu qaatay telefoonka xoog ku daf markaas meeqama balad ka qaatay markii labaad oo telefoonki saddexaad iga marooya kontii 6 waa biska afrikaas ma uu heestibo laakiin hadda laba telefoon iga marooya wala shaawad had ma joogtaa way joogtaa Naciimo xaaskiisa ma fadhidaa inta ma joogtaa ma joogto maya ma joogto hooyadiis la joogto hadda marka waxa ka maqan 16 oo raqam eede iyo iPhone 15 iPhone 15 marka wala shaalamiya baayale iPhone ku yaala basaldhigo yaala waa la keenay khilaaf oo isku dhac hore oo xaaska saadaam iyo idinka dhaxay wuu jiro Soomaan may telefoonka meesha laga qaaday oo saadaam idinkaga qaaday waa gurigiina Soomaan gurigiina gudihiisa saadaam iyo idinka aqoon oo isku leeyahay koor maxkamadda ma santa telefoon iga maqan koo imaaday telefoon oo iga qaatay mar labaad oo 10 bir ka bacdo ii soo laabtay mobile iPhone kale oo iga qaatay sabab maxaa mobilada masiis adiga maalkas ma siineenin guriga oo yaalay qolka jiifka oo yaalay gabar walaashay ay la joogto marti ah sariirta soo istaagay gabadhii oo la ka kaftamay mobilkii dhiibo dhahay Samsung oo ahay mobilka marka loo dhiibay oo dhahday gabadha furi kari telefoonka ani ma lihi Faisa leh maxaa lahay Faisa ku furayso asi waayo yiri ma weeliyay telefoonka koos qaatay waa baxay saa u raadinay waa waayay hooyadiisa wacay hooy waxa ku dhahay mobile iga maqan wiilkaygana maxaa lahay mobile iga qaatay lambarkiisana maxaa lahay ma iga qabanay oo igu dhageysanaa marna nin oo igu dhiibaa maxaa lahay la hadal hooyo waayay igu tiri waa isla soo noqonaynaa igu tiri waayay han dhahay waa ku celiyay haddana hooyo wixii tiri wiilkii isma arkin laakiin markaas aragno ana kugu soo jawaab celinayo kabacdina meesan igu soo jawaab celinin iyadoo saasay tahay oo 10 bir mobilka iga maqan oo wuxuu ku darsaday mobile iPhone ah oo ani aan leeyahay sida ugu darsaday waxay tahay albaabkaas waxnimo soo garaacay ma laga furayaa lagu dhahay ani waa hurday gabar walaashay ku dhahday markaas wuxuu dhahay iga fur lacagtii wadaa iyo mobilkii oo niga qaatay waayay tiri baaya soo kacday faa'iidada mobilka laga qaatay soo kacday albaabkii ka furtay markii albaabka ka furtay telefonkii ku wada hooyana way soo socotaa lacagtii mobilka rabnaa inaan ku siino maxaa lahay kursi idhig waayay tiri kursiga meesha u dhigtay shaaxo meesha ku cabay telefoona meesha yiilay abaaya marka waxa ku dhaw mobilka ayaa laga qaadanay meesha ka soo qaatay waayay igu tiri faa'iidadii gurigayga gadaal u gashay
gabar kaloo walaashay meesha fadhisay qolka igu soo galay qolka markuu igu soo galo saa ii fiiriyay shibaa ka dhahe way igu soo haaday cenjo igu qabtay wuxuu dhahay mobilkiisa ma ku siinaya ku dhaha mobilkayda mayo igu yiri cenjo igu qabtay cenjadu markuu igu qabtay oo igu farmaroojiyay taleefanka markuu igu farmaroojiyay ka dab orod isdhahay albaabka igu soo xiray albaabka aafirayay maxaa lahaay jid kale isku sii kala tuuray boo ilaa waa gaari waayay sababtay taa nin rag iyo dumar isku mid maaha marka sidii dhacday naagtiisa u tagay waxa ku dhaabaayo taleefankayga oo iga qaatay kaalay mar labaad oo taleefankayga qaatay kaalay ila raadi ninka aad taqaan meesha galay ilaa adoo ku qabaayo markaas waxay igu tiri abaayo anigu kula raadi kari mana socod kari xaamila ahay abaayo waxa ku dhahay ma soconaysid moota ana ku saaraayo intee doontaa igu noqoto ninkaaga meesha joogo kaliya ii sheeg markaas tiri kuma raaci karo meesha joogana ma aqaano waaye han dhahay bakaara tagnay waa ka soo weynay xamarweyna tagnay xamarweyniya haddana ka soo weynay isgooskan oo shingaani isku qabanay marka isku qabanay ilaa markiisa baaya xitir waa kana ninka asoo laba tagna oo furaayo samakaara oo ka bixinayo samakaradii oo meeshii laga bixiyay oo asoo ka bixinayo mooto ee saaranta afar nin ee ku saaran yihiin ilaa markiisa baaya ku duuftay xidhaaday waa kana mobilkaygiisii adayga soo qaadatay mobilkayga oo baahana dadkoo dhan isku soo bixin xaadacaya allahay wixii dhac noo sheega telefoon oo naga qaatay laba telefoon oo naga qaatay haddana telefoon iPhone iga soo qaatay woona soo gatay ninkan xaarba in ii xiro ninkii jijidkii oo jijiidayay waa bixiyay mid kale oo asii saaxiibkiisa meesha lagu qabtay saaxiibkiisa xaadaan asigu wala socdo tuug qaris leewaaye asaana maxaa lahaay la socdo ninkan telefoonkeena haddii ninkan la xiro telefoonkeena waa heleena waayaha nala lahay saldhiga nala keenay ninkii la xiray ninka marka la xiray ninkan kala soo wuxuu imaaday oo geeda la cabayo oo la buufinayo oo gacmaha ku wato oo midna baca ay ugu jiraan oo dhahayo lafaa inta iiga dhumeen yaa arkeen wiilal dharcada arkeen wiilasha dharcadka markii soo qabteen asoo la sii wada aragnay anagoo meesha ka soo baxnay oo xaafadda u sii socono waa laabanay ninka miyaa ninka telefoonka ka dhacay waay haa waay asi waay samboy allah waay hayuu yiri wiilka sidii marka lagu xiray samboyga markii dambe hooyadiisii imaadeen marka xaaraan maamoy telefoonkeena u baahanahay lacagteena waa u baahanahay maxaa lahaay maxaa xal ah markaas ay u tiri waa isku soo laabaneena way ha ku dhahay iskuma soo laabaneen darada maxaa lahaay isku imaaday saldhiga markuu wixii tiri hooyo aan waxa haay malahan waxaan niga tuugayaa inay wiilkayga iska cafisiin xoolahoo nigu leeyahayne macnaha iska cafisiin ilaa anigu wax ma haaye markaas waxaan ku dhahay markuu xoolihii qaadanaya tuugnimo ugu qaadmaya abaay isiimo ugu qaado waa maya tuugno looma naxariista ku dhahay ani telefonkeyga hantideeda waa u baahanahay markaas tirada u baahan tahay maxkamadda tag maxaa lahaay ka dhac sacadkaaga marka waxa u baahnaa lahay telefonadeeda iyo lacagteeda in dawladda ay soo dhiciso telefoon ma ka maqas lacag ka maqan telefoon guriga iga degnaa jiray $700 ku leeyahay laba mobilna iga maqan tahay guriga soo deg asaga guriga gabadha iga soo degtay gabadha markay waxay tiri ninkayga waa inuu qabaa meehay ani gabadha ku guriga kiristay kabacdi gabadha waxay tiri garoobaan ahay waayaha ku dhahay maxaa lahaay habeenkii arkay ninkan oo soo hoynay 4 saac marey tahay ina u galaa waxa ku dhahay ninkan maxaa waa ii soo hoynay ilaa maxaa lahaay gabdhahayga anaga leenahay ninkaygana waa maqan yahay waa ogtahay markaas waxay dhahday abaayo inuu qabaa ninkan degmada maxay ugu sheegi weys marka ku geenay dhihaysa garooba ahay maxaa u dhihibays naag la qabaa ahay abaayo dib ma ii soo jiiday waay degmadii oo laaban xaa dhahay ani dadka misaan fiicino ina iga rirtiina rabaa marka waxay ugu dhaheen bishaan ha u dhamaato waa laga raraa degmadii waa ya bondere gudoomiye ninka la yiraahdo yarka xagga fadhiya wuxuu ii imaaday maalin oo khamiis ay tahay 11 bisha 11aad 2025 wuxuu yiri waxaan rabaa u dhahay iPhone 15 Pro Max cusayba ma haysaa u dhahay waa hayaa dhahay iPhone 15 Pro Max cusayba markii aan taleefanka u sheegay wuxuu dhahay ii soo bixi oo u soo baxshay iPhone 15 Pro Max waa u furay simakaar uu geliyay mobilka uu iska fiirino biyo galay waa afufay simakaar uu gashtay markuu simakaarkii geliyay wuxuu wacay gabar u dhahay ani xaaskeyga waay gabadhii markuu wacay wuxuu dhahay lacagna waa ku heshiinay $850 ku heshiinay taleefanka cusubka waa qaadanaa u dhahay laakiin xaaskeyga si rabaa intii ka imaanaysa cabaar usug sidii markaa ku heshiinay telefoon iska wacay ayadoo wacay taleefanka wuxuu fiirinayay fiidiyaashu isku fiiriya kaamirooyinku wax dhan oo fiirsaday cabaar ila taagnaay ani lafteeda xoogaa marka
way soo fadhiyeen marka hore way soo taagneen marka ninka markii ilaa wuxuu iga sugaa Janice ani ama ku foorarsado ama qof iigu imaato dukaanka si oo asaga micnaha ilaa howl kale wata aan ma fahansin marka ninka maadaama mobilka u bariyo cusub baraawiyay oo gabadha la hadlay uu tiri waa soo socda oo Cabdilashid u tilmaamay danka ma ana galin micnaha ilaa markiis wuxuu markii ilaa wuxuu qadaray mobilkiga marka charger mobilkii ku jiray waa soo dhac mobilka markaan saas u doontay muraayadana way ii xiran tahay kunfila igu dhagan subax markaan soo galo muraayada waa xirtaa marka waan ilaa aamnay inta ka baxa maahana inta kama boodi karo muraayad waa yarka marka ilaa markii soo ila taagnaa dhinacan u taagnaa mobilka video call ku hadlay cabaar ba gabadho wacaa cabaar ba ana kursiga aska fadhiista marka hal mar marka taleefanka soo dhaco hoos asu deeyay ninkii waa waay intaan xayaa muraayada ka dhac baxa albaabka sida ugu booday banaanka markaas uu istaagsaday wax meesha jooga male aaga waa fiiriyay anoo qabla ana banaanka ka bax wiilala banaanka fadhiyeen saxibiyara soo yara inta soo baxada ma aragteen nin walba wuxuu dhahay ha ku dhac warniyo yara mobile ga qaaday intuu banaanka hal mar fag soo yeeray dadkii suuqleyda meela waa fiireen hal xabba waa waay waa iska soo baxay dukaanka ku laabtay meesha waa xiray waa baxay saldhig axmar weynaa tagay waxa dhaanay qaabkaas wax u dhaceen yaraana mobile ka gaday saas uu ii galay sawirkiisa ma leeyahay sawirkiisa qad ka raadi bej TikTok oo leeyahay waxa jira saan bay ugu qoran tahay fiidiyaasha waxaan tusay taliyaha saldhiga oo axmar weyne marka tusoo wuxuu dhahay niyahow yarkan way raadiyeen galabtii soo wuxuu dhahay xamar jajab waa inaad tagtaa u dhahay sababta wuxuu dhahay ninkaas xamar jajab aan kaga sheego dhahay oobi waa inaad soo gelisaa u dhahay haddana xamar jajab haddana soo geliyay waxaan haddana maalmo kadib raadino boon dheera laga sheegay waxaa la dhahaa waa inaad boon dheera tagtaa haddana oobi waa inaad gelisaa ma fahmino intaas meel markaa soo laabtay waa iska soo laabtay wax kulleeyta askarta waxay dhahay liida laga sheegay dhahay ninkii waana 11aad bishii 11aad 2025 ilaa marka waa raadinayna micnaha waxa raadiyay wax oo xamar kii Cabdicasiis jooga Cabdicasiis taliya midka baaraha fadhiyo waxa dhahay qaab noocaas ah dhacay ninkaas wareentiisa u diray waxa dhahay adika dhankiinu imaada Allah wuxuu dhahay hadii aan helno oo kula soo xiriireynaa ana hadda dukaankii maaldhow iska jooga waxa soo wacay taliyaha saldhiga axmar weyne wuxuu dhahay ninkii rabtay imaaw uu dhahay saldhiga Shangaaniya tagay uu dhahay ninka adiga rabtay haduu noqdo waa la gartaa haduu noqo waayana hadda asaga maahan Shangaaniya xaatay 12 saac asagoo jooga markii aan baarayaashu tagay waxay dhaheen ninka raadinayso sawirkiisa hortan tus waa tusay yar muusal ilaahay joogo fiiri wuxuu dhahay sax waa u dhahay ninkan waa haynaa asaga loo waxa xalay ninkan ma taqaana wuxuu dhahay waa aqaana ha mistaqaanino ha waxa lahay ani markaas waxay iga qoreen information iga qoreen maadaama ani Shangaani aan waxba aan dhigin saasi barax ku dhahay marka wax yara ka tagay gabadhii ay imaado oo mato ku socota oo wacay gabadhii waa qabtay yara la ishtaxay riyaha saldhiga tagaa saldhiga waxaan saasaa jirta waxay dhaheen gabadha maadaama wax aanaka ku haynin waxay tiri gabadha walaalkiisa jiray tiri hooyadiisna waa aqaanahay tiri way ku xiraay tiri saasa ayna marka la baradii wixii looga qoray waa gabadhu qalbiga gabadha wuxuu dhahay waa qabaa u dhahay adiga hore aqoon jirtay miya uma aqoon jirin hadda ka horna asay gabadha ay imaadeen igo dhahay ayagoo markaas suuq telefoon ay wateen waa gaday gabadha gadaysa asagoo gabadha waa la socda asaga laakiin gabadhu la socda saasa marka meeshiidaba aniga dukaankeena ku imaadeen telefoon iska gadeen markaan bishaan bila ka horeedo waa telefoon iska gadeen saasoo haddana igu soo laabtay telefoon hadda ka hor gadi jirnay gabadhii hadda telefoon u gadaa $380 ka siiyay adi marka mobilada ma gadaa ma soo gadataa aniga mobilada ku cusubna waa gadnaa celisna waa gadnaa marka qofka oo mobil ku bedelaayo waa ka gadanaa marka asaga way iimaadeen waxay dhaheen kan waa iska gadaynaa waan u bedeli kartaan miya marka qofka mobilkan oo kale oo keensada 15 oo 16 qaaday kana lacag loo xisaabaa ka cusubka loo furaa jaawnika way madax u dhac cusub ii fur samboy magacaas in la dhaho oo TikTok leeyahay ku sheegay aniga gabadhii ma qabano sawiraanta laga baad ana gabadhan cadeymii dhama waa ka helnay lambarkiisa wixiisa dhanna awal lambarka laakiin gabadhan lacag u dira asagana waa la socdaba gabadha markaa qabtan waxay dhahday waaba kana sawiraanta ani saldhiga sababta wuxuu dhahay ninka qofka sawiraantiisa la iska rabaa dhaheen marka page-ka TikTok galnay samboy asagoo fiidiyaal ah soo dugsaday ما لكن كان وحوليه هو معامل جيرني وحوليه ما مدغدن هل مره يمادن اسي xaaskiisana waa gabadha markii dambana wuxuu dhacay ayadaan ku gadaa saadaan aqoon iyo kalsooni ku qabto ayaa teleefanka aad ka gadeysay ugu dhibtay saasa uu sii jeestay maadaama aqoon ina u leedahay oo aan ka dhuuminina ogtahay aqoon iyo kalsooni ilaa qof aadan ogeyn ganacsada tahay teleefan iskaga mid dhiibays mana sii jeesanays saadaan aqoon hore iyo macaamil hore oo idin dhaxmaray awgeed ayaa teleefanka ugu dhibtay Soomaaliya uguma dhiibin qofka hadduu ku imaado oo mobilka furo waa inuu baraawaysto waqtigaas sida lacagtii aad sheegtay saadama u turtay oo telefoon kor kaaga gatay 200 mar u turtay 180 waqti kale u turtay Soomaaliya
waqtiyo kala duwan ayaa u turta Soomaaliya lacagta ugu lahaa haddaan soo bixinaa inaa hal waqti wada diray lacagtaas qaabka u dirtay maxkamadda u faahfaahay iyo taariikhda iyo waqti muddada u dhaxaysay inaa taariikhda soo ogaado waa mudane gudoomiye gabadha waa ii imaaday anikaas adaa uma baana ka wada hadlinba gabadha markii aan ii imaaday mobile la heshiiyay 380 suuqay soo mareen ana lacagta ugu badnaa gaaray ma fahantay lacagta markaa gaaray gabadha waxay dhahday $250 ii dir ma fahmino iska gadi maayo bahalkii guriga kire ku joognaayay gabadha sidaa lacagta ugu diray markaa u diray maalin labaad ii soo laabtay asii gabadha iyo walaalkeeda iyo asaga sodona ii imaadeen waxay dhaheen ninaw lacagta kuma celi karnaa inoo wada dhamaystir bartaasa anii saadaamna oo anii markaas iga arkay تلفون عصابة برنامج كسمة بكوتشرين أسميد كلا برنامج كأصل له سودك سيد موجين عصابة كمركا موبايلك أكجدايو أو مركز أكجدايو أو وحي أهش إني كبعد هذا نوع هاي جبرنا أقضاء حاس كيجا أصل اللي بيصير محاكاة وضع معناها قف مو كم معناها أكشكي معناها قف أقضي كرو أجيا معناها كوي مانايو ما نسدي قف كان معناها ما أكو قادا مو كبقى حتى محاكاة مغنى هذه مركز أنا واحد جمع كان تلافك سديد بقول كنت كدورة كل شيء عصابة جمع كان أو نمبر كيس محلي يا تلف كاس آيفون 15 برو ماكس سديد بقول كنت دول مركز جوجي سديد بقول كنت دورة العجا أو جوجي مركز هذا ما سنتا إبراهيم كفريس ويلا إيه مال وسلام الله موبايل يجدو ده معنا ديار واحد هي موبايل نعرفته موبايل أي كنت نلح حرام وده لو بقول كنت نلح جيبيه رمتو ألف ديار واحد هي وموبايل كأسوه بشيء موبايل كاسي أو ببروي موبايل كده ببروي دالي قلف يحياس أصلا ساري وقت بدن ولي جو أصلا مركو موبايله كهلا وده العكس صوتور جوار عمل جوار وجوده ده فاهمينه العكس صوتور هذه أفرسن دق عمل ولي جو مركا أفرد دق عمل ولي جو قفك العكس صوتور العمل حلي سلادة هنا أو عسر هذين مركا تكان كان لا وقفت بس أقول جوجنا أني مت كلا جوجنا مت كلام مركا وسوحر هري الباب بدأ وهذا عسر هذين صباح محمد دياره هذا هاي يركن العكس سوى أو موبايلك أو حر هروه هي واحد ما أسميه مركا أسميه وحده مركا العكتور هذا له دياره له موبايلك هو لمبر جلي وده لمبر كجلي هذا جلي موبايلك وقاطع واحد بين قلنا أسكري العك كثير وده الباب كبح الباب كنا وصل لنا مركاني موبايلك أنت فيرنا لينك مجو ويل جوا معنا ده ملا أرد وهو ماله كبح هو كاميرونك وحيوان فيري أو مش أنتوا اللي جورت كاميرا عادة لو أركا كاميرا كان بنان كده فيري موتفيكون أو تجند مركا موتفيكون تيجي إيران وكورد وكبود وافكين مركا أنت أنا وجيد معناها ما يقردن أنتوا الباب كبحاي لكن مركو الباب كبحاني يخر سوا مؤرد أو موتفيكون تدق ده معنا وكبود أنت صادع أساس واحد ده لعكتني يموتور معنا هذا دكان لا تامين دكان لا سوق بعد هذا دكان لا كتا مركي محاكاة مغنى موبايل كنت لي حاجة مغنى كنت لي حكام شكو أقصد موقعك يا قبتنا كاميرا كاميرون كقبتنا ninkaan nin saaxiibkiisa iyo familkiisa oo ii keenay mootada qaab loo wareejin oo jirta laba qaab loo wareejiyaa qaabna noo tahay inaa martin qaabna qofka familkiisa iyo wixiisna aqoonsatid sidaas aan mootada ugu dhiibtay sidii aan ugu dhiibay familkiisa iyo wixiisa aqoonsaday gurigiisa aqoonsaday asaa aqoonsaday sidii mootada ugu waday mootada ilmaha loogu shaqeynayay kirada kasoo tuuraadina ilmaha leedahay ilmaha ay ka biilo sidaas aan mootada si ugu wareejiyay adig maxaa qabataa ani hadda ma shaqeeyay jaamacada dhameeyay laakiin waa soo shaqeeyay laakiin hadda ma shaqeeyo معك شغل جرت IT أبرت software development يا قد موتد أنا هاف لعقت كلها وهذي إذا هاف كله يوجد أنا هواي قدرني إذا مجو كده في أوف لسا محارب تمرك مع عصني عصنا ما دام إني كان مركي أو يخشي ده عن اللي صاوعي حالي داي موتد هذا أم هذه ضرب كامل راوني كان مرة موتد إذا خات ضرب كي هرا لا يعرفه صما هذا وابحي ضرب كوالي شخي راخد قعنسينا خاتي ما دام ودجير ودقنا ويخشي ديك يسوق وكرين أنا أصاب فيس تو فيس كأرجني وصاحبتي يخشي ذا قصاصي ما دام أنا هذا أو ليش خيد ولد ليش خي نكى توجا أنا قصاصي عصنا إن أو مبتدي ذا أهل دوكيمنتي موتد يا كورن أنا كورن ممكن بحاله وراخد دوحي هستان أو جد كلو مرة يبوجي سنة وتوابتا دوكيمنتي موتد فيكون تحلل هذا وراخد مريض يبوج بس بوج أسوأ فكنا markayta waxa ku qoran taargadii wax ku qoran taargadii magaciisa saddexan information-kii ku qoran wada marista ikhshide taala iyadoo hadda original na haystaa laakiin muddo oo bacdu ku jirto nadiifta ikhshide taala wada marista yaa qoran traffic ma qorto uu faa contact soo gidaya soo siiyeen
faykonta marka la soo gadaa lagu siinaa. xeeraaliye markii la isku hubiyo kadib hala sii mootadiisa inka odaga xeeraaliyaha u dhiib ashaday adiga maxaa tahay maxaa qabataa horta nin ganacsada Cabdirashiid meerad ku leeyahay moobeelada cusubkan waa iibiyaa eriskan waa iibsadaa arrintan kaad marka arrinkan maalin waxa ay imaaday ninkaas moobeel oo ii sheekan watay moobeelku waa ii keenay waa ku heshiinay moobeelka abraac la mas'uuliya abraac ayaa marsiistay waa iska barooway markuu baroowada iga baxay telefoonka restaurant isaga diraa oo qolo waxaa jirta moobeelada xirato oo sanaabiil lahaay qofka markaas aan gadanayo waa la weydiiyaa oo waxaa la dhahaa moobeelkan restaurant ma isaga diri karaa hadduu haa dhaho restoorka isaga dirnaa hadduu may dhahona waa restoor uma dirna oo telefoonkiisaa siinaa markii aan heshiinay oo aan barooweystay baroowada iga baxay telefoonka restoora iska marsiiyey kadib lacagtiisaan siiyey restoorku macnaha waxaa waaye miya haa macnaha lama xiro karo moobeelka moobeelo waa sanaabiil jirto qolo la dhahayo oo moobeelada xirato marka moobeelka markii la keeno oo aad barooweystid restoorkaas inaad u dirtid mar walba muhiim waa haddii restoora isaga diri weysa adoo kaa xirmaa lacagtaada khasaaray noqonay meeqaasiis asaga si lacag 250 muxuu kuu sheegay adiga asaga waxba iima sheegin moobeelka inuu iib u yahay bis wax kastoo iyo magaday ama iska fiirinay moobeelka waa iska fiiriyay waa furnaa markuu inuu furan yahay aan arkay oo nadiif yahay waa heshiinay waa iska barooway markuu baroowada iga baxay kadib waa lacagtiisa u diray waana wax xiran waxaas meeyay Cabdirashiid muxuu yahay wax la dhacma loo gataa mise wax celisi waxaas maxaa lagu sameeyaa maya moobeelo celisi aniga gataa cusubna waa gadaa shaqtiyaan leeyahay meeradaan leeyahay marka moobeelada celiskana waa gataa haday nadiif yihiin oo aysan xirnayn waana sii gadaa hadda maxaa kaa maqan hadda lacagaa iga maqan aniga moobeelkaas kii uu kaa gada laftiisi miya moobeel asla mid ah waa ay kan tilix waa hadda marka waxaa kaa maqan lacagaa iga maqan waa 250 anoo shaqadeeda ku jiro waxaa ka shaqeeyaa suuqa Cabdirashiid moobeelada gadaa moobeelada celiska caadi qofka oo danta iska gadaayo gadaa ku cusub gadaa ku cusubna waa gadaa celiskana waa gadaa marka anoo shaqadeeda ku jira waxa ii imaaday nin moobeel iska gadaayo waa caadi oo shacab iska ah moobeelkana iska gadaa iga gado moobeelkiisa kurtku iga furay sawirkiisa u saaran wixii waa ka baroowi waa fiiriyay waa yahay ama macnaa dhib kale uu iga imaadaa camal may xaaskayga iga xanuunsana u gadaaba saas darteeda dantaas ay haysato iga gado waa ka barooweystay moobeel kale isii u dhahay lacagna macnaa isii xoogaa lacagtii iyo moobeelkii marka sidii ku kala baxnay meeqaasiis waa $200 kaash ah iyo moobeelka oo $75 moobeel oo u bedeshay miya moobeel kale oo Samsung asiisi macnaa lafta macnaa inta ku isticmaalaa ama ma jirto marka moobeel kale oo sii shaqto iyo sii gadaba maadaama kan ay gadanayso kan iyo lacag rabaa macnaa moobeel kale iyo lacag moobeel iyo $200 siis marka moobeel iyo $200 moobeelkaas marka isla moobeelka uu ka gaday miya kaas iPhone ka uu keeno asiga ku kala soo gadaadne kan uu ii keeno ka gadanayo kii naftirkiisu kii gabdhaha lahaayeen waa mid cusub ma gadan mise asiga waa maxaa ka maqan marka ani marka $200 iyo moobeelka kale oo $75 u xisaaba $275 ka maqan ka $75 u xisaaba ano moobeelka waxa laga qaadanayaa sadam waa isla asaga lacagta $200 ninka hore muu taqaan sadam may maalintaas iska horeysay kaligiis mu ahaa kaligiis waa cidna ma la socon Cabdirashiid joogtay bakaara magacaygu waa Asluub Sheekh Axmed baaraha saldhigga booliiska Shangaani taariikhdu markay ahayd 11 bishii 2026 5 saac subaxnimo waxaa la soo xiray eedeysana Sadaam eedeysanaha markii la soo xiray waxaa imaaday saldhigga laba gabdhood oo dhibanayaal ah oo lagu kala magacaabo Faa'iiso iyo Naciima waxa ay sheegay inuu ka soo qaatay moobeel iPhone 15 iyo A16 eedeysanaha waa la waday waxaa loo geeyay ganacsade Saalax oo dhibana ah oo uu ku qiyaamay moobeelka oo iskaga dhigay inuu asaga leeyahay una ka soo gatay Saalax waa la soo waday waxaana laga qaaday moobeelkii iPhone 15 ka ahaa oo ay lahayd dhibana Naciima halka A16 oo hore u cunay sidoo kale eedeysanaha waxaa la keenay maxkamadda taariikhdu markay ahayd 14 bishii 2026 maxkamadda waxaa nagu wareejisay dhibanayaal kale oo laga soo wareejiyay maxkamadda saldhigga degmada Yaaqshiid kuwaasoo kale ah
ibraahim iyo maxamed xuseen ibraahim wuxuu ka dafay si farsamaysan mobile iphone 15 pro max maxamed xuseen dhibanahaas wuxuu ka qaatay isagana ee kontoni 6 iyo samcad isagoo ugu tagay suuq bacaad tookada oo qaadanay mobile ee kontoni 6 iyo samcad waxaa la socday eedeysanaha labaad maxamed oo ay ku soo heshiiyeen in ay wax wada dafaan wuxuu u qaabilsanaa wadida mootada Motofecom M5V32 oo uu leeyahay dhibanaha halkan fadhiya kaasoo u maleynaya inuu si caadi ugu shaqeynayo sanad la wadaagin inuu fal dhac ah ama fal farsamaysan ah uu ku geysanayo eedeysanayaasha markii la baaray waxaa noo soo baxday baaristii booliiska in ay galeen fal dhac ah cabtooynimo ah dalka iyo dadkana ay khatar ku yihiin sidoo kale eedeysanaha labaad wuxuu cadeeyay inuu markaas la socday oona ka qaatay lacag $100 ah si heshiis ahna ay ku wada socdeen falkaas inay ku wada galaan markii la soo qaatay iPhone-ka mobilka ee 16 samaacadana mootada kacsan oo u diyaarsan inuu kula orday cadeyntana waxa laga arki karaa CCTV kamerada aan la wadaagnin xafiiska xir ilaalinta sidoo kale waxaan keenay maxkamadda horteeda mobilkii iPhone 15 ka ahaa oo ay lahayd Naciima si lamid ah mobile E24 oo isagana loogu lacageeyay qayb kamid ah mobilka lacagta uu ku gadanay mobilada mid kamid ah eedeysanayaasha halkan fadhiya eedeysana Saddam waxa waay askari police ah sida uu noo sheegay kan kalena waa nin shacab ah labadoodana waxay ku wada heshiiyeen inay wadanka dhibaato ka geystaan mobiladana ay ka dafaan dadka sidoo kale Naciima falka uu geysay waa fal dhac ah sababtoo ah waa qof dumar ah oo nugul ah waxa ay sheegtay in uu gurigeeda u galay qoorta ka qabtay xoog oo uga qaatay mobilka awoodiisa raganimadana oo uga orday maadaama aysan qaban karin wuxuu cabay buufin iyo wax suujin ah oo aan maxkamadda hor keenay kuwaas oo lagu sameeyo waxa waa suujinka lagu sameeyo AC-ga mukayfka lacagta lambarkii loogu tuuray maxamed cali lambarkii maxkamadda ma loo wadaagi kartaa lambarkii maxamed uu watay ee lacagta $100 ee asheegta loogu tuuray baaristaada gungaarkaada haddii aad ku qortay maxkamadda la wadaag eedeysanayaasha ma haystaa mobile sababtoo ah waa dad tuuganimo u diyaar ah iyo dhac may waxaa sheegtay maadaama baara aad tahay eedeysanayaashan inay dembiga wada galeen wax caddeynayo oo dukumiinti ah tusaale ahaan lacagay isku tuureen taleefanada lacagay isku tuureen EVC waxay isdhaafsadeen ee aad baaristaada ku ogaatay haddii ay jirinna ma jiraan dheh wax falka abaabulan ee ka dhaxeeya labada eedeysane waxaan ku ogaaday kaamirada oo soo qabatay qaabka ay wada qaateen kaamirada markii laga soo tago iyo qiraarka markii laga soo tago wax adiga EVC ah ama lacag isku tuureen oo aad heeso oo baaristaada ku ogaatay ma jirto Soomaaliya ma arkin EVC ay isku diraan sanaashu waxa lagu soo qabtay baashana lagu soo qabtay oo maxkamadda hortaal caadi ahaan waxa loo adeegsadaa qabowjiyaha baalkaas in lagu shubo iyo baabuurta air conditionka loo adeegsadaa macnaha sida caadiga ah laakiin sanaashu waxay u adeegsanayeen qaab daraagis ah oo waxay sameeyeen hadda buufintan waxa ku jirto baashana lagu shubay marka meeshaas afka ay ka dhuuqayaan waxayna ka raadinayaan sakhradii ka raadinayaan sakhrada marka aad caadi ugu golgareyso caafimaad ahaan qatarta ay leedahay markaad weydiiso waxay ku sheegayaan inay caafimaadka aad khatar uga tahay oo ay sababto dhimasho degdeg ah marka qaabkay u isticmaalayaan raba maxkamadna ma sharaxo si buufintan loogu shubo buufintan waxaa la gelinaya inta la gelinaya saasaa loogu shubaa marka waxaa la sameynaa halkaas afkaa laga xiraa si tartiiba marka qofku dhuuqaa hadda waxaa ka buuxdo hawada marka caadi ahaan waxaa loo adeegsadaa oo loogu talagalay inay qaboojiso baabuurta iyo mukeefyada iyo loogu talagalay laakiin eedeysana Saddam wuxuu adeegsanaa inuu ka raadiyo sakhrad marka gogolgareysan waxay ku leeyihiinba waa dhimasho degdeg ah waxay sababtaa sakhrad zaa'ida sidoo kale qofka ciyo wixii gaarsiinay daraagiska uu rabay iyo sakhradii uu rabay degdeg ku gaarsiyaa lagu leeyahay marka arrin qatar oo
ku cusub waa magaaladan oo eedeysana saadaan lagu qabto waa gudoomiye marka bahaladan oo watay wuuna dhuuqay marka saameynta waxyaabaha ay sababayso waxaa ka mid ah gaaskan wuxuu aad oo degdeg waa ka degdeg badan yahay inuu sakrad ku gaarsiiyo degdeg uu badan yahay marka xashiishka loo eedo dhexdhexaad waay in si cinyoowa oo dabiici ah ku hesho sakradda macquul maaha khamrada sidoo kale asi laakiin si degdeg ku gaaraya lagu leeyahay sidoo kale daqiiqadaha uu qofka ku saameynayo uu qofka ku noqonayo qof daraagis cabsan oo ka dareemayso waa daqiiqado degdeg ah oo waxaa dareemaysaa in isla daqiiqada qofka uu dhuuqabo hore inuu ka sakramayo oo sakradda ay hore ka gaarayso balad ahaan wuxuu saameeyaa jirka iyo maskaxda u saameeyaa halka khamrada ay saameyso maskaxda laakiin kan qofka cabaa oo muddooyin badan wada waa ka dareemaya jir ahaan iyo maskax ahaana ka dareemaysaa baashaan marka waxa loogu shubayo waxaa waaye haddaan baashaan saan loo dhuuqi karin waxay xoogaa u heynaysaa ee u qafiifinaysaa baasha soo gaaraysa si hadda dabiici ay ku socotaa aan la dareemeyn marka afka ay geliso waa dareemeyn maadada marka aad baarto waxay ku leeyihiin waxay ka khatar badan tahay daraagiska kaloo dhan oo dhimasho degdeg ah ayay sababtaa marka aaladdan uu isticmaalayo booliiska Soomaaliyeed waa ka tirsan yahay caafimaadkana waa jooga hoggaanka caafimaadka oo waxaa loogu talagalay wacyigelinta bulshada inuu khataraha uga dego hoggaanka caafimaadka uu dhaho waxay ka shaqeeyaan waa caafimaad laakiin asigaa khatarta isticmaalaya oo gacantiisa ku isticmaalaya oo lagu soo qabto ka barteeshka aan galayna eedeysana saadana laga qaaday oo wata buufintaan uu ku watay oo la dhuuqay hadda buufinta anaga sameeyno meeshan waa Xamrweyne waa dukaanka Ibrahim uu ku leeyahay suuqa Xamrweyne oo uu galay uu ka dafay sandaqadaas hoose meesha computer ku yaalo ayuu ku leeyahay dukaan mobilada lagu iibiyo mobil 15 aan rabaa fiiri inta iska fiiri dhagaas ka baroobay samacada baroobay hebelo isoo wac inta sheekaas lagu jiray oo baroobada lagu jiray wuxuu fiiriyay attentionkiisa markuu inuu mashquul u arkayna uu ka orday Ibrahim laamaha amniga iyo degmooyinka kala duwan ayuu ka dacwooday si uu helo xuquuqda uu ku lahaa muu gudoomiye goobtan waa goobta lagu qabtay eedeysanaha isagoo wato alaabahan sakradda ah ee gaaska ah ee uu adeegsanayay inuu isku sarqaamiyo waa Shangaani Maxamed Dheere ayaa lagu qabtay ciidanka nabad sugidda ayaa qabteen goobtan waa suuq bacaad muu gudoomiye waa dukaan meeshaas ku yaalo electronic lagu gado oo dhibane Maxamed uu lahaa meesha ugu tagay sidoo kale u sheekiyay xilli salaade ahayd oo xilli iska mashquula mobilku ka dafay motor raac marka waxaan rabnaa kaamirada maxkamadda u shidno meeshan waxaa la helay kaamirada la helay goobtan saa u jeedin waa suuq bacaad laamiga suuq bacaad waaye mootadii waa taas notify konti Maxamed ninkan waa ka dagay halkaas waxa ka dareemaysaa inuu Maxamed ku sugayo ninkan marka eedeysana saadaan wuxuu wataa jaakad sarwaal wuxuu garabka waxa u saaran boorso baasha buraashada oo cabid biyo lagu cabayn uu wataa taasoo cadeynayso in uu iska dhigayo nin diaspora ah si uu dadka u gaado mootolii waa ka halkaas ku suga dukaan galgal run dukaankan waa marka meeshan waa dukaankii dhibane Maxamed uu soo galay eedeysana saadaan waa kaas wajigiisa haddoo dhihi lahay kaamirada ima qaban kaamirada caadi u qabanaysaa waa asaga oo meeshan taagan buraashada cabitaankan uu wataa eedeysaniin waa sugaa macnaha si la iskugu aadinayo eedeysaniin meesha ku sugaya macnaha ilaa uu ninkan wax soo dafo sugaa mar labaad wajigiisa lagu soo dhaweey doonaa waa kaas waa saadaan oo meesha taagan gorgortan oo ku jira mobilkii dhibane Maxamed ka maqnaa ayuu la gorgortamayaa kadibna uu dafi doonaa marka gorgortanka bacdi waxaa maxkamaddu geey doonaa ana waqti ka luminaynin mootolaha qaabka ku soo galay marka mobilka soo dafo eedeysana saadaan uu soo ordi doonaa mootada wuxuu ku fuuli doonaa qaab aan caadi ahayn hore loo arag waa kaas karow miyaas leedahay hal mar ku booda dhukub wal mar ku leeyahay qaabka ugu boodayo muu gudoomiye inuu sugaayo waxa ku cadeeyay eedeysana Maxamed qaabka u taagnaa iyo markuu soo galayba qaabku waa u koray
hal mar qaabka uu koraayo maxkamadda ay la arag inay isfahansan yihiin meesha kaga caddeeyayso waa kaas qaabkaas ugu booday marka qaabkan ugu booday kadib nimankan waa ordeen shilay galeen shilki waa kasii ordeen dada hatee dhaawac u eed nimankan oo iska cafiyey mooto saasay ordaysaa mootoolaha marka ma marsiyo uma naqanayso ma ogeyn maxaa yeelay heshiisaa jiro agreementiyaa jiro intee ku geeyaha meelaha kugu geeyaha $5 $2 $3 isma dhihi meeshaan baashan waa diyaarsaneed tug waxaan mar ku dhaa ninkaan mudan gudoomiye waxaan rabnaa inaan maxkamadda dana u geyno marka la joogo suuqa bakaaraha dukaanka qaabkay ku soo galeen waa kuwaana saadaan waa kan dane markaan mobilkii oo soo badsado wataa wuxuu u socdaa saalax si uu u gado mobilka gabadhii ay lahayd naciime ay lahayd si uu u gado cabdishidiye hore ka tegey waa kaas asigoo ugu tegaayo xaruntii bakaaraha markaana waa markuu la gorgortamaayo saalax waa kaas fanaan cagaarkaa waaye surwaalka wato kaamiraha kor u kacsanay maan laakiin asiga waaye waxaa caddeehaya midda ka koraysaa caddaynayso oo ah dhar cagaarka inuu asaga yahay waa kaas saadaan waaye caadi asaa isfahmaayo saadaan mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh xafiiska xiraalinta wuxuu ku dadaalay in la hor keeno maxkamadda muwaafaqay kootan oo uu leeyahay dhibani asniinta ka hadlaayay ugu dhiibay inuu si xalaal uga shaqeeyo laakiin si xaaraana ayuu ugu shaqeeyay oo waxa aragtu ka shaqeeyay eedeysanaha labaad waa maxamed cali eedeysanahan wuxuu qayb kala ahaa 100% dhici uu geystay iyo xatooyadii iyo dafitaankii uu geystay eedeysana saadaan waa ninka ka fakinay ee inay laamaha amniga arkin ka shaqeeyay waay eedeysanahan wuxuu ka khatar badan yahay marka saadaan uu ka khatar badan yahay maxaa yeelay uu la ordayba ninkii la orday ilaa meesha uu rabo geeyahay waxaasna wuxuu ku qaadanayay lacag tirabeel uu ka qaadanayay waxa waa darawalka mootadan oo hadda milkiilaha soo sheegayo ugu dhiibay si irshaq xalaala inuu uga keeno laakiin qaab xaaraana ayuu uga keenay maxkamadda maasanta waxaa maxkamadda hor keenay naciime yaasiin aadan oo iyadana maxkamadda ka hadashay wixii ka maqnaana sheegtay sidoo kale dhibane ibraahim xasan cabdullaahi ayaa maxkamadda hor keenay iyo dhammaan dhibanayaashii ay dhibaateeyey eedeysane saadaan sidoo kalena uu qayb kala ahaa eedeysane maxamed cali maxamed mudan gudoomiye intaas kadib xafiiska xeerlaalinta wuxuu ku soo eedeeyey 484 maxaa yeelay saadaan waa askari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan hoggaankii caafimaadka wuxuuna adeegsanayay waxyaabaha aan soo bandhignay oo caafimaadka liddi ku ah caafimaadkii soo horjeeda waxyaabahan caafimaadka uma fiicno laakiin asiga wuxuu ka tirsan yahay hoggaankii caafimaadka loogu talagalay inuu ummadda ka waaniyo waxyaabahaas mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in eedeysane saadaan ay ku xukunto magta dhibanayaashaas uu xaday moobeeladooda ka dafay dhammaantoodna maxkamadda aan soo gudbinay sidoo kale ay ku xukunto qodobada aan ku soo eedeynay waxyaabaha ay dhigayaan maxkamadda waa maasantahay magacii waa wakaata cabdullaahi cabdiraxmaan qareenna u ah eedeysanayaasha maxkamadda horjoogo ee lagu kala magacaabo saadaan cabdulaahi cali iyo eedeysanaha labaad maxamed cali maxamed mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida wuxuu ku soo eedeeyey eedeysanayaasha aqreen ku ahay qodobka 484 oo ah oo wuxuu ka hadlaa dhac mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh xafiiska xiraalintana ma uusan caddeyn dhaca shuruudaha uu leeyahay waxaa ka mid ah in qori wax lagu dhacay in maaragtay qasab uu jiro in macnaha tooray ama midi wax lagu dhaco ama qori wax lagu dhaco xafiiska xiraalintana ma uusan keenin mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha koowaad saadaam cabdulaahi iyo dhibanayaasha maxkamadda loo keenay gabdhaha waxaa ka dhexeeyay khilaaf hore mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxay sheegeen guriga inay wada degnaayeen asiga iyo guriga ay degnaayeen asiga xaaskiisa gabdhahana ay la deganaayeen dad isyaqaanana ay ahaayeen mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh qofku yaqaano oo haddana
isla degneedeen muddo aad isla nooleedeen in aad wax ka dhacdo ama aad wax ka xaddo adigoose waa wax macnaa wax dhici kara ma ahan saadaam haddii uu wax dhacaayo ama uu wax hadaayo wuxuu ka xadi lahaa dadka uusan aqoonin ama meelo kale magaalada ka baxsan wax ka qaadan lahay mudane guddoomiye khilaaf ka dhexeeyey iyo hantitiisa uu ku tabaayey ee xaaskiisa ka qaateen dhibanahan ay sheegtay in gabadha xaaskiisa ee taleefon ka qaadatay maxkamadda ay hor sheegtay inay gabadhaas taleefon ka qaadatay xaaskiisana ee taleefon iPhone ka daftay maxkamadda ka sheegaysa xoolahaas ka maqnaay ayuu ku tabaayey saasuu taleefon u qaatay taleefonkeedana xafiiska xalaaliyaha uu hayaa hadeer oo khilaafkaas mudane guddoomiye haddana inuu ku wareejiyo diyaar u yahay mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh qodobka 32 wuxuu sheegaa xeerka habka ciqaabta wuxuu sheegaa qof kaste oo waxyeeleeya ama carqaladeeya xaq qof kale isagoo qofka sharci ahaan xaqa lahaa uu ogolaaday ciqaab ma mutaysanayo qodobka 32 ay sheegaa mudane guddoomiye haddii dad khilaaf ka dhaxeeyay oo wax kala qaatay inaysan maaragtay mudane guddoomiye in aysan wax dambi ah aysan ahayn suuqleyda dadka markay deynta kala qaataan oo xoolihiis ka qaadan waayo dukaankiisa alaabta taalo qaataa xuliya wixii si waxaad ku sii ujeedada ugu soo qaadanay mudane guddoomiye sidaas ahayd iyo inuu wax hadam ahayn mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh wax oo gabadha waxay sheegtay inay lacag kiraa ay ku leedahay taas oo meesh ka saarayso waxay sheegtay sidoo kale inay hal bilood ay guriga degnaayeen guriga qofka markuu imaanayo bishii ugu horeysa lacagtooda la hormarsadaa hormarisa loo bixiyaa lacagta $70 guri kiradiisa way hormariyeen bishii labaadna waa ka guureenbo isfahamkii iyo dagaalkii markuu dhacay waa ka guureen taleefankii markii ay ka qaadatay ayuu ku tabaayay xoolihiis inay siiso xoolihiina way u soo celi weysay saasoo imaatay inuu guri ku soo noqdo saasoo taleefon u qaaday mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh ee dhibanaha labaad Ibraahim iyo Saadaam haddii aan ka hadlo mudane guddoomiye Saadaam iyo Ibraahim waxay ahaayeen dad macaamilo Saadaam wuxuu guriga maadaama guriga ka lacag deyn u baahday 200 oo deyn uu ka qaatay Ibraahim 200 oo deynta ahayd taleefankiisa rahan u dhigtay taasna mudane guddoomiye garsooreyaal sharci waa ogol yahay rahan in wax la markay adeeg qaadato in rahan dhigto wax dambi ma ahan sharciguna waa ogol yahay shariicada islaamka iyo fiqigana waa ka hadlaa marka aad xoolo qaadanayso ama deyn aad qaadanayso inaad rahan dhigato rahanta wuxuu u dhigtay taleefankiisa deentana Ibraahim waxay ahayd inuu deenta ka sugo Saadaam ma uusan ku sugin mudane guddoomiye wuxuu sameeyay taleefankii oo Ibraahim lahaay ayuu gaday $170 oo celiyay Saadaam oo arinta ka xanaaqsanaa imaaday wuxuu yiri mobilkii maxaa u gaday taleefan kale oo marka inuu gato ku qasbanaaday lacagna maadaama uu haysan wuxuu yiri taleefankii ku soo qaat mudane guddoomiye wixii dheeraada oo hadan inuu u celiyo diyaar u yahay Saadaam inuu wixii xoolo ama qarash lagu lahaay oo dhinaca Ibraahim ku lahaay inuu iska bixiyo wix xisaab celin ah diyaar u yahay taasna mudane guddoomiye xatooyo ma ahan xatooyo waxa waa qof aan ku u jeedin inaa wax ka qaadato waa Ibraahimna ninkan aqoon hore isku lahaayeen lacagta laba mar u kala tuuro taas cadeen waa inay dad macaamil jiray ahaayeen waxa kale oo cadeen u ah in taleefankii uu ku aaminay oo iska shaqadiisa kale oo iska sii qabsaday sababtoo ah taasna cadeen u tahay in macnaha dad macaamil jiray ahaayeen mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh Ibraahim Saadaam eedasana qaranku ah wuxuu diyaar u yahay in wax kasta oo xuquuq lagu sheegto oo xisaab celin ah inuu iska bixiyo hooyadiisna waa joogtaa inay ka bixiso oo heshiiska hadda wax dhaxay u maray gudoomiye maxkamadda waxa ka codsanay in hooyadiis ay wareysato si wiilkeeda inay tuugnimo ku ogeed dabeecadiisa si looga wareyso mudane gudoomiye eedasana labaad Maxamed Cali iyo Saadaam mootada ku soo kuris wuxuu yiri meel ay geeniyay inta meeshii uu waday intaana la gaarin ayuu wuxuu yiri dukaankana wax ka soo qabsanaa alaaba ka soo qabsanaa isug wuxuu yiri walaalo kum suukar ana waa shaqaysan lahay mooto deena ku wada soo dhaqso ana wuxuu yiri 2 daqiiqo ka badan kum suugay Saadaanna balanti Maxamed balanti oo meesha ku taagnaay maadaama Saadaan wuxuu yiri nin asugiis uu ahaa degdegsiimada oo orodka iyo sugitaanka sidaas ahayd mudane gudoomiye qof dukaan galana oo wax ka soo gadanayo qof inuu wax hadayo looma maleynayo mana arkeen aragti qofka diinta walba hortiisa dii qor wax loo qaadala waxba ahaleed laakiin nin dukaan tagay oo rakaab ku ahaa oo dukaan galay oo qofka daba qeylina aan arkin
laakiin aad sugaysay oo inuu 2 daqiiqo kuu soo dhaqsado aad sugaysay maadaama aad shaqo kale qabsan rabto oo mootaalo aad tahay mudane gudoomiye sugitaanka uu sugaayay waxay ahayd inuu soo degdegsiimo degdegtii mootada orodka uu ku soo raacana waa sidaas wax dambiya uu leeyahay ma jirto xafiiska xiraalinta mudane gudoomiye mootadii iyo shaqadii yariista uu ka shaqaysanaa ayuu ku joojiyey hadda waxaa lagu maaragtay dhibanihii oo ninkii oo mootada u waday oo u shaqaynaa oo shaqaala u haay mootadii ka cistay asiga hadda dhibanay oo shaqadii uu ka shaqaysanaayo wixii yaraayo biilka ka raadsanaayo hadda mootadii laga qaaday mudane gudoomiye waxaa maxkamadda ka codsanaa in mootadiisa sida ugu shaqaysan jiray loogu ogolaado oo asigii maaragtay oo ciqaabta laga dhaafo maadaama uusan wax ka ogeyn mootadiina maaragtay kiro uu saas u ahay qof kireyste oo meesha la geey idhaahana la geenaayo qofkii soo raacaana saas u raacay saadaam haddii wax qaatay iyo haddii wax geysana uusan wax shaqaa uusan ku leyn baarahana way sheegtay in wax lacag u tuurto ma jirto mudane gudoomiye haddii macquul tahay waxaa la caddeyn lahaa bakshadii loo tuuray oo lacagtii loo tuuray ayaa la keeni lahaa maxkamadda haddii lacagtaas lagu arki lahaa ama moobilkiisa lacag ay isku tuureen ama $100 ama $50 ay isku tuureen hadday jirto oo xafiiska u caddeeyay ama baara ay caddeys maxamed waa dambiile markaas mudane gudoomiye laakiin haddii aanan la caddeynin oo sugitaanka uu sugayo ee tahay wax dambi uu ku leeyahay male mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta waxaa maxkamadda ka codsanaa in maxamed cali xoriyadiisa ay maxkamadda siiso saadaamna wixii xuquuqaada uu ku leeyahay inay maxkamadda inuu iska bixiyo diyaar u yahay wixii xuquuq lagu leeyahay wixii kale falki kale oo yaaqshidna maxkamadda u fududeyso wixii maaragtay u fududeyso hooyadiisa mudane gudoomiye joogto maxkamadda waxaa ka codsanaa inay hooyada warbixinteeda iyo heshiiska iyo meesha maray inay maxkamadda ka wareyso haye maxaa codsee mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanaa qaladkan aa gale ana aan ku jiro haddadaan khilaalka aa ka ahayna mudane gudoomiye waxaa diyaar u ahay dadkan waxaas oo dhan ka wada hadleeyeen waa dad isnaqaano maantana aa ogaa in la iska qabsan doono beri ka maalin waxoodan aa u celi doono shalay markaa baahida aa u qabo saas darteed aa u sameeyey iskuulkee ka baxda adiga jaabir bin xayaan alqalow sanadkee 2021 anoo askariga ka baxtay adiga maxaa u qaad maxaa u orod waa la ordaysay maxaa u orday ninkan wax soo qaatay maya mudan garsoor lama ordinaan degdeg ay u furnaan ninka markaa soo qaaday marka hore u sheegay ana meelaha ka degsanay meeshan ciyo ka soo dhaqso marka meeshii ku sugay ciyo soo dhaqsaa ciyo sidii ugu maad marka sidii ay wada baxnay degdeg soo kugu furay taagana carabtabe maya markuu soo socday markuu soo socday gadaasheeda inaa fiiriyo waxa soo dhaqsaa waa bixir waay هذا تايم أي وسعد واللي سوى شغل اللي سوى أنا شغل ستار واي محكمة معك الدلبنة محكمة وعاك عسلا يعني إنه واحد واحد كوين أو نين كريستا أي ولا سو كريستي أو إنه نين شغل سنة أي وعن واحد كوين نعم كال أو نعم فوق ولا كم كنت غانا موبايل كال كم وامي سيقول في اسمه مش كله محكمة غانا موبايل كان ذاقيت هل موبايل العقل حتى الموبايل كان قاعد موبايل كان وحكى كلام كان مغنى محكمة قوان كذا كويلي صالح كالب هذا كلا هذا كان هدا غاية المحاكم مغنى أو بغلود كان مغنى قوان محكمة كذا كويلي ورد كان يعلى ولا سوق ذا اللهاي محمد هيك كم تقانا ولا نوعان aku beri kata. Dibilang ya. Kisah aku beli kerana asal kesu kerta wahag. Wahag usku kerana aku beri. Sud. Kamar kaqaayt maxaa ka maqnaa? Hal samada ka maqnaa saxiix. Maada dadban aku beri. Intaas ku dhan yahay kiis baan u xireen.